anigu waxaan ahay dhagool gudbisi karin ereyada caashiqa kuwooda macaan iyo kuwooda dheemanka la moodo. Ruux walba oo dunidan ku nool waxa uu jecel yahay mar qura inuu sameeyo waxa ugu weyn, kaasoo ah xiriirka jacaylka. Cabdiraxmaan Maxamed waxa uu ka mid ahaa dhalinyarada ku nool magaalada Muqdisho, gaar ahaan degmada Howlwadaag. Cabdiraxmaan wuxuu ahaa wiil dhagool ah. Waxa uu dhiganayay mid ka mid ah iskuulada ay dhigtaan dadka dhagoolada, waxa uuna ka baranayay cilmi kala duwan sida luqadda Ingiriiska iyo xisaabta ayuu baranayay. Cabdiraxmaan wuxuu ahaa wiil dadaal badan, quruxda, kaftanka iyo dabeecadda Allah subxaanahu wa tacaala ayaa gooni u siiyey. Aadamaha koonkan marka ay ku nool yihiin, qof walba waxbuu u riyaaqaa, qof walba waxbaa qalbigiisa ku weyn. Cabdiraxmaan mar qura waxaa qalbigiisa soo galay waxa ugu quruxda badan qof walba dunidan ku noolna maalin qura uu ku riyoodo. Cabdiraxmaan qalbigiisa waxaa soo galay xiriir jacayl. Waxa uu raadiyay qofkii uu la sameyn lahaa, isaga oo inta badanna isweydiiyey in uu dhagool yahay. Haddana waxa uu isweydiiyey sida jacaylkiisa uu u gudbisan karo iyadoo ay labadaasi dhibaato haysato. Ayuu haddana Cabdiraxmaan waxa uu go'aansaday in uu noqon karo ruux gudbisan karo jacaylka iyo qiimaha uu leeyahay. Cabdiraxmaan waxa uu jeclaaday mid ka mid ah gabdhihii la dhiganayay iskuulka. Gabadhaas oo lagu magacaabay Samsam aad ayay u tixgelin jirtay Cabdiraxmaan, mar walbana walaaltinimadooda waxay ahayd mid aad u qurux badan. Samsam isma aysan lahayn maalin qura ah ayuu Cabdiraxmaan ku jeclaa doonaa. Inkastoo gabdhaha qaar ay isku diraan ama ay isdhahaan naayaha ma qof dhagool ah ayaa jeclaatay, naama waalan tahay, naa waxaa rabta siday uga helaysaa iyo waxyaabo kale. Laakiin Samsam waxay ahayd gabar aad u qurux badan. Samsam iyo Cabdiraxmaan waxay isla socdaanba wuxuu xiriirkoodu gaaray meeshii ugu sareysay ee walaaltinimada. Kaliya waxaa dhibnaa in lagu dhawaaqo ereygii jacaylka. Halkaas ayaan kusoo afmeerayaa qaybtii koowaad warbixintii Cabdiraxmaan. Anigu waxaan ahay dhagool, sidee u gudbisi karaa jacaylkayga? Waxaa idiin soo gudbinaya anigoo ah Mahad Abuukar Maxamed, Mahad Socdaal. waxaad ka daawanayseen barta YouTube-ka ku leeyahay Socdaal 24. nagu xirnaaw ilaa gabagabada sheekadan halka ay ku dhammaato.